بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale walaalayaal muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay guri iib ah waana guriga aad hadda aragtaan waa guriga ay kaamiradu hayso walaalayaal waa aragtaan gurigan iibka ah waxa uu saaran yahay laami waa guri wada laami ah saaran laamiga waa kana sidoo kale dhinaca kalena ay wada ay ka marto waliba walaalayaal laamiga uu ku yaalo waa laami aad u shidan oo si weyn oo horumar badan iyo guryo dabaqyo waaweyn ay ka muuqanayaan xaafadda sidoo kale waa aragtaan jacadaha dhinacan aad ayaa loo camiray la soo dhawaada walaalayaal gurigan iibka ah magaalada wuxuu ugu yaalaa meel istiraatiiji ah waa guri deegaan iyo ganacsi intaba ku galo laamiga ayuu saaran yahay qaybaha laamiga saaran waa ganacsi qaybtan gadaalana waa deegaan walaalayaal soo dhawaada waxaan guda galayaa xogta gurigan iibka ah oo dhameystiran insha Allah taala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo oo aan faahfaahiyo walaalayaal gurigan wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho wuxuu uga sii yaalaa degmada Shibis walaalayaal si gaar ah wuxuu uga sii yaalaa degmada Shibis xaafadda tabeelaha jaceelka ama soonaha Manabolio marka aad joogtid interloga tabeelaha jaceelka ayaa wax yar u dhaafaysa dhanka Manabolio kadib waxa uu ka qabanayaa gacantaada bidix ama dhanka qorax ka soo baxa laamiga ayuu saaran yahay dabaqa dheerka apartmentiyada ah dhanka ka soo horjeeda ayuu ku yaalaa waa aragtaan dabaqaas quruxda badan leh sidoo kale dhanka interloga tabeelaha markaad ka timaado dabaqaas kale ee qabyada ah ayaa asna ka socda dhismihiisa soo dhawaada walaalayaal waa meel aad iyo aad istiraatiiji u ah haddii aan ka hadlo xagga cabirka gurigan iibka ah walaalayaal wuxuu ku fadhiyaa cabir ah 12 lagu dhuftay 12 ama doodisha bardoodisha hadba sida u taqaanid dhinacana wuxuu ka yahay 12 mitir oo wadadan uu ka haysto dhinaca kalena wuxuu ka yahay oo laamiga uu ka saaran yahay 12 mitir waa 12 mitir balac ah iyo 12 mitir dherer ah walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha iyo lacagta lagu rabo walaalayaal gurigan iibka ah waxa lagu rabaa oo kaliya 250,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waana macal dalaal iyo heshiis waxa la yiraahdaa beec meesha ka bilowda kuma dhamaado walaalayaal qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah taala qiimahana waa u qalmaa walaalayaal mar walba qiimaha waxa la fiiriyaa meesha sida uu qurux badan tahay istiraatiijiga ay tahay laamiyada ay haysato waa aragtaan wada laami ah guri saaran oo cabir waasac ah haysto cabir macquul ah laba jidla ah qiimaha runtii aad ay ugu qalmaa waana magaalada bartankeeda xaafadihii ugu shidnaay magaalada Muqdisho ayuu ku yaalaa walaalayaal haddii aan u gudbo dhanka wadooyinka iyo jihada gurigan iibka walaalayaal waa laba jidle laami iyo wada ayuu isku haystaa wadooyinkana waxay ka kala maraan laamiga oo ka mara dhanka galbeed iyo wadada kale oo ka marta dhanka koonfureed waa laba jidle galbeed ujeed iyo koonfur ujeed ah walaalayaal haddii aan u gudbo ama aan ka hadlo xagga dukumiintiga gurigan iibka ah waxa uu leeyahay dukumiinti saxan oo dhameystiran kaasoo ah dukumiintiyada hore waa dukumiinti original ah waa dukumiintiyadii 1990 ka hor la bixiyay waliba xaafadan muddo fog ayaa la deganaa Shibis waa taqaanaan iyo Sona Bilaajo iyo ereyadan waa xaafadihii ay magaalada ku bilaabatay oo 60meeyadii iyo ka hor la deganaa marka soo dhawaada dukumiintiga wax walba ah ma laha nootaayada aad dalbataan ayaa idin geenayna insha Allah taala si la idin kaga hubiyo sax ahaanshaha dukumiintiga insha Allah taala walaalayaal si kooban hadda ugu hadlo waxyaabaha idinka anfici kara gurigan iibka ah gurigan koow wuxuu idinka anfici karaa deegaan midda labaad wuxuu idinka anfici karaa xagga maalgashiga inaad dabaq inta ka dhistaan apartmentiyo halkii qayb ayaa intaas oo apartment laga dhisi karaa xaafadan kiriyadan aad ay u fiican tahay bishi intaas oo $1,000 ayaa ka soo galayso lacagta aad ku dhistane sanado kooban laga yaabay ka yar 10 sano ama wax la mid ah inay kugu soo laabato marka soo dhawaada waa fursad maalgashi aad u weyn midda kale walaalayaal sidiisa da u kireysato waa laami guri saaran waa meel ganacsi suuqa Manabolio kama dheero afar jirdiina kama dheero iyo suuq bacaad
meel laga heli karo dhammaan adeegyada asaasiga ah ee loo baahan yahay si kooban. waa deegaan ganacsi maalgashi iyo kiro intaba. walaalayaal soo dhawaada. haddii aad dhul ama guri beeca ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira. sidan oo kale ayaa idinkugu beecgeenaynaa insha Allah tacaala. sidoo kale haddii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira waa idin helaynaa insha Allah tacaala. dhulalka iyo guryaha hayna way ka badan yihiin waxa la soo geliyo. marka soo dhawaada ka faa'iideysta. astaanteena waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha. ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. walaalayaal waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allah tacaala. sidoo kale Facebook iyo TikTok follow naga soo dhaha. waa mahadsantihiin mar kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.